إياك نعبد سيدبين الله سبحانه وتعالى وعبدنا maxaynu u baahannahay markaynu Allah subhanahu wa ta'ala u cibaadeysanayno qalbiga sideebaynu u ilaalina waxyaabahaas baynu insha Allah ta'ala xalqadaha soo socda kaga hadli doonaa insha Allah ta'ala alamin sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa xalqadii labaad barnaamijkeenu ku magacawnay iyyaka na'bud oo bisha ramadaan Allah subhanahu wa ta'ala mar hadaynu u cibaadeysanayno inaynu fiqiga cibaadada iyo qalbiga inaynu fahanno iyo geedi socodka Allah subhanahu wa ta'ala inuu u soconayna xaqiis inaynu macna iyo fiqi u yeelano ayaynu insha Allah ta'ala kaga hadlayni inagu waxaanu u soconaa xagga Allah subhanahu wa ta'ala soonkan aad sooman tahay taraawixdan iyo tahajjudkan aad tukanayso quraankan Allah subhanahu wa ta'ala aad la nooshahay sadaqadan aad la baxayso cibaadooyinka kala duwan ama qalbiga ka dhacdo ama xubnaha ka dhacdo ujeedada looga jeeda xagga Allah subhanahu wa ta'ala in loo socdo fafirru ila Allah xagga Allah loo cararo geediga xagga Allah subhanahu wa ta'ala inuu u soconayno wuxuu u baahan yahay waxa weeye manazil iyo boosas la degayo ayaynu u baahannahay ka waxa ka al-yaqada qofku inuu baraarugo hurdada inuu ka tooso mooganaanta iyo ghaflada iyo maqnaanshaha iyo ilowga cibaadooyinka Allah subhanahu wa ta'ala uu hilmaamayo ama ka moogan yahay tan noocaas inuu ka baraarugo inuu ka soo tooso qofku markuu macaasida iyo dunuubta dhaxda baalanayo markuu xumaanta ku sugan yahay markuu Allah subhanahu wa ta'ala ka fog yahay wuxuu ka dhigan yahay sidii qof wixii loogu talagalay ka hurda ka moogan ka maqan sii jeeda talaabada koowaad waa inaad toosto inaad baraarugto waa halka ay ka bilaabanto hanuunka iyo hidaayadu waa halka laga soo gala cibaadada waa halka socodka Ilaahay loo soconayo laga bilaabayo al-yaqada Ilaahay waxa uu leeyahay wala takum min al-ghafilin hakamid noqon kuwa mooganaanaya ee ghaflada ku sugan laqad kunta fi ghaflatin min hada Ilaahay maalinta qiyaamo wuxuu ku oran doonaa dadka gaabiska sameeyay waxaad ku sugnayd ghaflo iyo mooganaan ayaad waxa weeye ku sugnayd markaynu ka hadlayno baraarugaas wuxuu ka dhigan yahay qofku markuu wadada hayo ee gaarigiisa uu wato ee uu safar ku jiro socdaal uu ku jiro waxa laga yaabaa sidoo gaariga uu wada u maqan yahay ayaa waxa laga yaabaa hal mar inuu eego gaariga saacadiisa inuu eego dabeedna uu ku arka leeyr baxaya leerkaas wuxuu sheegayaa shidaalkii ama saliidii gaarigu inay ka dhamaatay leerka waxa loogu talagalay qofka inay baraarujiso marka uu dareemo leerkii gaarigu inuu bilaa saliid yahay inuu ku baxay qofku markiiba wuxuu u leexanaya wadada inuu ka baxo gaariga joojiyo waayo haduu sidaa ku sii wado waxa laga yaabaa mashiinku inuu ku qarxa laga yaabaa toosida uu toosaya uu baraarugayo ee khatarta soo wajahaysa waxa hor yaalla uu dareemayo wata keenaysa qofku inuu wadada wanaagsan cagta u saaro hadaynu eegno dad badan oo xilligan jooga iyo dadkii horeba laga soo bilaabay saxaabadii anbiyadii hore dadkii saalixiinta ah ee wanaagsanaa maxamed ka horeeyay dadka iman doona qofka toobad keenaya ilaahay u soo noqonaya qof waliba wuxuu soo maraa xaaladda baraaruga abu soo maraa marxalad uu maqan yahay ayaa wuxuu ku toosayaa waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala iyo xaaladda uu ku sugan yahay dhowr tusaale hadii aynu soo qaadano nin la yiraahdo al-Fudayl ibn Iyad oo culimadii muslimiinta kamida walibana ahanin aad u cibaado badan oo kelmada xikmad badan laga hayo aad u xikmad badan ayaa waxa dhacday wuxuu ahaa nin naftiisa aad ugu gabad falay buu ahaa wuxuu ahaa nin dadka dhaca
jidgooyooyinka u gala dhibkiisa iyo sharkiisu aanu yarayn dhinac walba u tuura gabadh buu jeclaaday isagoo xaalkiisu uu sidaa yahay dabeedna habeenada ka mida wuxuu doonay inuu gabadhii uu jeclaa guriga ugu soo dhaco gidaarkii isagoo fuushan oo doonaya gabadha inuu guriga ugu soo dhaco la kulmo ayaa wuxuu maqlay waa habeen barkii qof salaatul leylkii ku tukanaya oo ku celcelinaya alam ya'ni lilladina aamanuu an takhsha'a qulubuhum lidhikri illah wama nazala min alhaq miyaanay ku dhowaan xaalkoodu aanu gaadhin oo aanay soo dhowaanin dadka mu'miniinta ah inay ku khushuucaan oo qalbigoodu uu ku khushuuco ilaahay xuskiisa iyo waxa uu soo dejiyay xaqa ah markuu aayadda maqlay buu baraarugay macaasiya dunuub buu dhex dabaalanay uu ka soo laabto gidaarkii waa ka soo degay gabadhiina uma tegin wuxuu u hoyday meeshii u hoyanay markuu meeshiisii tegay ayaa wuxuu maqlay dad socota waa habeen barhkii oo safara oo meel agtiisa ku sheekaysanaya oo qaar ay leeyihiin aynu guurayno oo socodka sii wadno qaarna ay leeyihiin waar ninkii Fudayl ibn Ciyaad ba meelahan ka dhow waagu habaryo haddaynu habeen soconno jidku inoo galaya waa ina dhibaataynaya waxa galay baraarug kala galay wuxuu go'aansaday Allah subhanahu wa ta'ala inuu soo noqdo wuxuu ka mid noqday dadkii culimadii muslimiinta ee walibana cibaadada iyo zuhdiga iyo khayrka iyo wanaagga ku caanbaxay hadalladoodana aad ka loo daliishado xikmadaha caanka laga dhaxlayna waxa kamida wadada xaqa markaad hayso ee ilaahay aad u cibaadeysanayso waxa weeye cidhiidhiyaanay ku galin oo ha dareemin kalinnimo dadka kooban ee kula cibaadeysanaya ama dadka cibaadeysanaya yaraanshahooda waxa weeye ha dareemin hana ku dagtoomin dadka aadka u badan ee ilaahay caasiyaya ee dunuubtiisa dhex dabaalanaya kuwaana ha ku dagtoomin xikmadiisa ay ka mid tahay waxa kamid ah nimankaanu soo qaadanayno ee baraarugay ee xaalkooda Allah subhanahu wa ta'ala hagaajiyay imaamka loo yaqaan Abdullah ibn Maslamah al-Qanabi al-Imam al-Bukhari shiikhisi weeyi asxaab al-kutub as-sittana waxa weeye shiikh buu ahaa badankooda ama dhamaantood Abdullah ibn Maslamah al-Qanabi wuxuu ahaa nin aad khamriga u cabba dadka aad u dhiba aad u hawl badan buu ahaa maalmaha kamida isagoo aan xaaladiisu aanay caadi ahayn ayaa waxa soo agmaray shiikha loo yaqaan Shu'bah ibn al-Hajjaj oo muhaddithiintii waaweynaa ee islaamka kamida oo ay ardaydiisu daba socoto waxa uu ku yiri Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab al-Qa'nabi maxaad ahayd wuxuu waxaan ahay nin xadiidka sheega muhaddithiinta ayaan kamid ahay wuxuu waxaan doonayaa xadiis inaad ii sheegto waa cabsan yahay xaaladiisu caadi ma waxaan doonayaa inaad xadiis ii sheegto wuxuu sheekhu ku sheegi maayo dadkii loo sheegi jirayna ma tihid intuu mindiis ka soo saaray buu yiri wallahi waa ku dilaya hadaadan sheegin waxna kuma inuu sheekha dilo sheekhi waxa uu ku yiri xadathana منصور قال حدثنا ربعي عن أبي مسعود الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وحان شيخيك كم مغلي يسونا وشيخيس كم مغلي كاسنا وكسي مغلي صحابي جليل كاها عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري إنه صحابي قاسي النبي وحان كم مغلي عليه الصلاة والسلام يسقوله dadku waxay ka soo gaareen anbiyadii hore hadalladii anbiyadii hore waxay ka soo gaareen waxa kamida hadii aadan xishoonayn waxa doonta samee ilaahay ba kala xisaabtamay xadiidka markuu sida u maqlay buu baraarugay dabadeedna wuxuu soo noqday Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noqday nin aad u cilmi badan culimada muslimiinta ee dhaxalka badan laga dhaxlay buu kamid noqday waxaan ku soo gabagabaynayaa xaaladan hadda xilligan la joogo dad badan ba macaasiya dunuub dhex dabaalanaya
waxa jira dad ka soo noqdo ilaahay soo noqday waxaan xasuustaa wayna aad bay u badantahay aadna waa u dhacdaa nin caana oo gayga Soomaaliyeed laga yaqaano ragacaanka kamida baa maalin aan maqlay isagoo ka sheekaynaya siduu balwada u joojiyay wuxuu muddo 30 sano ama 40 sano ku dhow sigaar cabay maalmaha kamida aan qol fadhiyo kaliya laydkuna dansan yahay oo laydka ama iftiinkii sigaarku u baxayo qiiqna aan sidaa u burburinayo ayuun baan isweydiiyay waxaan maxaad ka faa'iideysaa waxa ku timi baraarug baa ku yimi wuxuu maalintaasaan go'aan ku qaatay inaan joojiyo oo aan faraha ka qaaday idan wadada koowaad ee xagga Allah subhanahu wa ta'ala marka loo soconayo qofku waa inuu baraarugo markuu qofku tooso wuxuu galayaa marxalad labaad waxa ku imanaya inuu fakaro inuu maskaxda ka shaqaysiiyo inuu waxa weeye ku fakaro macaasida iyo dunuubta iyo gaabiska iyo gaboodfalka uu ku sugan yahay Allahna subhanahu wa ta'ala uu nicmaynayo uu arsaaqayo caafimaad uu siiyay hanti uu siiyay ubad uu siiyay hu iyo hoyba Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyay ilaahayna nicmooyinka uu sidaa ugu shubayo isaguna nicmadii Allah subhanahu wa ta'ala ka abaal darayo tanuucaasu ka fakaraya wuxuu ka fakarayaa oo uga sii gudbaya inuu ka fakaro Allah subhanahu wa ta'ala ya xuquuqda ya xuduudda uu u xadeeyay ayuu ka fakaraya wuxuu ka fakaraya Allah subhanahu wa ta'ala awoodiis iyo cadhadiisa hadduu cadhoodo iyo naxariistiisa iyo rajadiis ayuu waxa weeye ka fakaraya wuxuu ka fakarayaa waxa weeye aakhira iyo waxa yaala jannada iyo naarta iyo wadooyinka ku gaarsiinaya ayuu waxa weeye ka fakaraya wuxuu ka fakarayaa cidda uu u socdo kaba dambaystay muraadkiisa ama ujeedadiisu ay tahay Allah subhanahu wa ta'ala inuu yahay wuxuu ka fakarayaa wadada gaarsiinaysa oo ah in loo cibaadeysto wuxuu ka fakarayaa wasaaisha iyo wadooyinka ugu kaalmeynaya cibaadadaas iyo sidii la isaga ilaalin lahaa waxyaabaha noocaas oo dhan buu ka fakarayaa marka fakarkaasi isugu yimaado ayuu wuxuu u gudbayaa martabad kale ama manzilad kale ayuu waxa weeye u gudbayaa wallahu a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم